guddoonka labadiisa aqal ku-xigeenadiisa xildhibaanada labada aqal warbaahinta shaqaalaha saaxiibadayda kulligaa kala aragtida kala duwannahay waa dalkaba isagaa baabaka ayaa kashaku isagaa dalka wax laga weydiinayaa ragga maanta raba inay wax hogaamiyaan horta waa kuwan waxaan rabaa arrinta dastuurka inaad dib ugu soo laabto dastuurka 4 cutub hore la soo ansixiyey dadkii shalay gacanta u taagay ee dastuurka aaminsanaa maanta waa kuwa martay noo taagan sharciyan nin walba siyaasi ah oo imaado dalkan oo musharax madaxweynaha wuxuu ku doodaa dastuur baan dhamaystirayaa 4 sano ka hor maxamed cabdilaahi barmaajo markuu joogay qaar ka mid ah jooga maanta oo ku doodaya dastuurka dhamaystiraya xasan sheekh maxamed wuxuu ka yahay uu mas-uul ka yahay inuu dastuurka dhamaystiro saaxiibayaal aragti siyaasadeed iyo dood saxan iyo caqli fayow oo caafimaad qaba wax lagu doodaa nin miis garaacaya nin wax foodhinaya waxaan u aqaanaa fuugu kaa wadadan baa ley ama siiri soo qaata ama wax kale soo qaata dalkan iyo dadkan wuu socday ninka ragga ah ee raba inuu dalkan uu jiheeyo halkan intaad timaado doodaada aragtidaada jiib dalkani waa soo dhawaynayaa dastuurka qodobkiisa ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inuu ra-iisul wasaaruhu isagu magacaabo awood leeyahay waa soo dhawaynaya qodobkaas maanta waa nabaadiin guud dalkan loo istaagi maayo waa loo soconayaa waa la shaqaynayaa nidaam dastuur waa lagu dhammaynayaa dastuurka waa la dhammaystirayaa dalkiiyo dadku ha noolaadaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud baabahaygiisa xasan sheekh maxamuud aad ku sheegaysaada dalkan iyo dadka isaga kooba ilaahay isaga ugu soo dir mas-uulkaya raalliyahada allamayahay allahayahay waa raalliyahada dadka raalliyahada hogaansan laguma noqdo oolin laguma noqdo cabdiraxmaan shukur waa daashay odayaasha waaweynka masaakiinta saa kala soo diray waa daaleen saaxiibada kale biyaha hala siiyo hala nasto dastuurka dhamaystirkiisaan wadaynaa dalku waa guulaysta ciidamada qaranka haysta ee booliska dhex taagana waa guulaysateen waa badbaadsateen cirtigii inaad badbaadiseen sharaftii inaad badbaadiseen waxa kastoo hoystaaga dowladnimada waan iska celinaynaa aadaa mahadsantii